بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي يا مغله إلهي عدان هاي مبد صوماليات إسلام نقدر مغله إلهي يا مغله أيام قشوشكي يا خرم قنتي يا قجلنتي يا قجلنتي كسو قدومنا وحي أهاتو وهذا صار الشيء أيوه وحنا هاي أو أيوه وجان إهن الصومالي وحنا رني وين مركو هلايو نوين مركو هلايو سيد نوين وهلو إلها وين أنا وهلين سي أو مر حاجة أو أديو غيارين أيوه مر هذا الكعرورني وكعجلاي وجرته لكن مرة كانوا كلمة كلا هدلايو وإن الله لا سنين إلها بيقدر نين يقدر الحمد لله رب العالمين وده سو جرسي ماتا صومال الدولة دي طبانات أما ملحوني طبانات دورتي أما لا دورتي أما أي دورتين أما أي دورتين ما كلاه لا دورتي وصومالي وقم يا أما لا دورتي مركلة أما أي دورتين وبرلمانك أما أي دورتين وبرلمانك أنا بلاك كجونا دورشوين كانت لعيونان كوي درات كان وحاسون بلاك كجونا تدوينة أنا وأحمد دورون وأنا لا دورة ولو نوم الدوران دعوت نوم الدوران دعوت وحوا وسيدي معلمتي منو دوران وحنو دورة دورتياش دورت دولة دستي دورتان دورتياش وحوا دايرتي يعني ياش ملاك وحي هاتوا يا دورتي أي قاعد دورتي يا ودوران سومالي ودوران مركب marka gadaal soo celi marka yay u doon Soomaali ku qanac marka adiga waa ku qanacsanay marka dawladdu waa aad u qanacsanay macnaha dawladda kama wadi dawlad kasta oo ilaa iyo aan ka gaarayno nin iyo codkiis ilaa yaani oo soo taabana darbiga asaga oo wixii ka halaabana iga halaabana oo leeyahay cidii noo doortay ee ku daba tukanayna doorashadaasana doorasho dawladdaasana dawlad lama noolaan kare dawlad دولة حتى أنا أيضا كدارسين أنا وركان دولة كدارين دولة إن شاء الله كل وقت لا لسان ودولة بدولة كتب بيسو أي تيكارس دلال كذا في ساتنا بمركز أيضا وحي أو إسلامها مركب بناك اللي جوجا وحلا أركاعي هدي قلنا سوق شيء وأنا بكو كلجا ninka arooska loo wadiyo guriga uu galay iyo waakaas waa adinka yaa ka dhacdo oo waakaas adiga la waayo waa dawladda marka waxa la daaqilka ku jirta adaano dawladda ma garatay wax kale firq kale ma galayno firq kale wixii aad oo soo waxa laakiin dawladdu wixii la timaad ayada ayay dadweynaha ku qalan yihiin ogaata dawladda دولة مركز اللي ملحونين كبلاوته وحاكو رئيس الوزراء وحي وزير هاي حكومة دي هاد برلمانكي محكمة دي هدي لها جي وعصور من الدولة دواتها دت كان نوحنا هاي صعبة يا صعبة يعني إن شاء الله دولة دت كواد بتوضي دكانده waxa badiyay ama yaani duurjoognimada badiyay ama yaani isdaqaleenta dadka isdacayaan keenay waa duruf dilku waa duruf oo dhaca waa duruf dadka day baahan nasab maaha bilaadka doo baahan nasab maaha ولما داعي تداي بحتى نسمع نين وين واسألي كلا نين وين
الحمد لله ليه دي أو يعني مكان سقطاك إني وينه حاجة الماء يكترن أو إنه الدراد ما نقلاد في لا ماشي تأذي ماشي وصعديه أغري وحواس حسابتين إني وينه واجرا أو أسقط وصليسن أنا وحكي الله يا ولي بوال سكر دريا دايرته ما أنت ظروف أي يعني وحكوها لنا يعني ظروف أما كلها يعني حاجة جستو نوشقي علينا وأشقيه سيدي شغله بدرها وقبته أما أسقل تيسا إلا وعروره أنا يعني مسكحي اسمه شقينيسو سيدو شقي مسحدي شقينيسيني مال قالوا حكا كان كسولي محكا لي سداد عدو محا دايرتا هلو سمي يعني طريق دولدي دايرة طريق هلو سمي دليردا سو كعدي كو جامعadaha dhameeyay ku iskuulada ka soo baxaya kuwa hadii ilaahay ku diido farsamada bartay banaanka fadhiya ku halka shaqo dadka shaqaal oo yar wallahi hadii dhalinyarada shaqo loo yeero oo shaqeystaan dawladda way toosaysaa dawladda waxa leedahay waxa waa nin baahan ayaa wax la siinaa waxa la leeyahay ninkaas waxaad yeelaysaa saasan ka raa inaad yeeshid sidii isi ka daranaad yeelaa intii loo daray in ka badan hal dharbaaxan ku dhufaa dilire boqolaas ku dhufana marka baahidaas waxaa dabooli kara ilaahaa dabooli kara dawladnimo ayaa dabooli karto ilmaha inaad loo sameeyo dariiq meel qaab bay ku shaqaystaan loo sameeyo inkastoo hadda haddaan dhihi lahay beeraha fashaan oo beeraha la fashay dadka iska le war beeraha la fashado wax badana ka soo horeeyay aw horta beerta meeshu ka falanaya aawe beerta meeshu ka falanaya ninka dhalinyaro lagu hagaajinaya oo si dawladnimo loogu hagaajinaya garaash program loo dhisiyaa iyo garaash program si ay jirto loo dhisiyaa iyo shirkad ahaan meel loo siyaa dhiyo meeshan oo shirkad dawladda ku xiran oo kaala dawladda ka mid ah la dhigaa dhulka hal tabcada matoorada intii la qeylista maalin walba baayaa loo soo dadka raji alaso inta laga dhaay armatoorana siiya waa shaqaysanaynaa dawladda tiraaho oo dhulkii loo helo dhalinyarada dhulkii aa marka cajiibka taagan yahay dhulka qaarkiis oo ku fiican dhayli fiican kasoo bixi lahayd dhaqashada ku fiican oo dhul beereedka ahay qaarkiis lama tagi karo wadada waxayna looma imaan karo akhlaaqdii lisugu tagi lahayna lama hayo oo waa meesha celalaadkan kuwii hore u joogi jira beerahoodii kuwii kasoo caruro meelaha yani qaxootiga ku ah laakiin dawlad awooday leedahay waa helay dhulkaas ninkaas sheegaya oo joogo ka durkisaa oo يعني كدكتا جراج بروجرام إيو دول دولة لها جتة يو بنانا جرو أو دول كاس إنك استوي دودوين إسكسي خمسين دودوين أوسك عستا إيج إنا اللي هو أوجين وما شو كشخصي جرني وما شو كشخصي جري أو قبصري سنو أغناي ما شو غريول بكشخصي جري بركي دولة دي قدام بسود أوديسيات برا من حرستين دولة دي markii baxday nin walba meeshuu ka shaqayn jiray ayuu fartaysto uu yiri ama askale ayuu kuwaashiya ka dhacay kuwaashiya ninka kale ma soo gali karo ninka tabar yar waa soo gali waa xusula lagu bixiyo calaa beenta wallahi ana yaa askaleesh dhulkaas ayaa yaalo dawladnimada lagu bixinaya meel alla meesha dawladda laga bixiyo dhalinyarada عارف على الله كير هلا برا أنت هلا فرو أو أنت كي أو يعني عارف ذاتك وقت برنا عين كبعدين برنا الفلا دول دول الفلاي هلا الله وحيد ولا فرصة الدكسية ده هلا فرو لأن يرد سكولات على إنجليز إلى حب برنو هنا وممكن صوب عن إنجليز بيا أروح لو قعونا ما جرتو ولا دكسي فرصة ده
ayaa geena golaha farsamada habartaana gacanta haloo hagaajiyo meelahaasoo kale ka wadaa dhalinyarada kuwa waxa la sii baro kuwii wax yaqaanin oo wax fahmi kari meel hala geliyo onadkaas iyo adduunyadaas dhalinyarada hala jiheeyo oo halagu jiheeyo shaqo gabdhaha hala jiheeyo wixii ka bixi karaa haloo jiheeyo hooyooyinka hala jiheeyo oo meelo ayaga oo yani waxaa jirto oo ayaga oo tabarka ahoo u fiican beledka jadiidta ka dhigaan jadiid laamiyada ha jadiidiyaalo yaa xaqoodiine haddii hore loo sii jirna waa la siiyo haddii oo ku yaraa jirtana waaba la siinaa haloo kordhiyo haddii la sii jirna ayagaaba sheegi doona hooyooyinka halkaas lagu waxeeyo culummada ayagaa ku dhaqan oo culimo la-aan ma joogi karna culummada ayadaa hoggaan loo ahay diinta ilaahay anoo rakibaano diinta ha rakibaano si daacad oo qalbi furan siyaasad iyo ayayso aadin laftooda qaar waxaa arkaysa siyaasad ka sheekeynayo oo wadaada ah wadaadoo jooga siyaasadda idinka ha gelina waxaa nimankaan dadkaan kala wataan anugu gelina haddana idinka kuwii hore u galaa dhib nagu hay idinka kuwa kale wax kala nagu gelina kuwa gale waxaa jiro la halawda baasho anagaa dhibaatadaas waa ka siiyaa ha gelina walaalayaalo haddaad gelaysaan si maslaxad haddii oo lisqabsada lacalla bini aadan leeyahy waa lisqabsan karaa soomaaliyana waa lisqabsan karaa gar alla u gala gar alla u gala dhinaca u leexani sida culamada qaarkood arkay waa dhinaca u leexani dadkaa kala faliilin waxaa siday kula tahay oo alla kuga ogya uga hadaloo meesha wax boogta ka jirto waa arki kartaahe waa ma la isku diidan yaho inta meeshaad waa ujeedaahe adiga wax balaayaha ku darsan le war wanaagsan ku darsa haddaadan ku darsan karin ka aamus culamadana halkeeda saa qabsato oo diinta hanuuga hagto oo bilaha culamada leh hanoo tilmaamaano oo haddii ilaa ku diin meelaha oo yani u baahan sida roobdoonka kale markii haddii sidii abaaraha hadda oo dalkeeni oo dhan anfeeyey dhacaan inaa dadka la roob doono oo looxda madaxa la saarto loox maba jirta waraaqa hadda lasoo dhigo loox maba jirta ma garata ilaahay la baryo ilaahay addoonkii baryi waayo balaayo qabo waa ka anoo cilmi maliya culimada ayadaa ka maqla ayadana haddana u sheego waaya baryadii ilaahay ninkii qabsado ilaahayna waxba uma waayin laakiin waa in xalaal cunaa daacad aada adoo xalaal cunaynin daacad ahayn dacadaada wax matareyso asdaalin ka her inta xalaasha aad ducayso markii roobdoonka loo baxaa adigina xalaal cun waa ogtahe gurigaada iska joog gurigaada dadka xalaasha oo waxba isku ogeen roob doonaano roobka waa noo daa dhirta way qoyaysaa yaa dhulku way qoyayaa darabkaa la beeranayaa dhiiqadaa la beeranayaa ilaa ku diid waa kaasoo nooca joogaasaa la ahaanayaa qalbi furan laakiin qalbi fiyo waa lagu wada joogo ummadda soomaaliya qalbi fiyo ku wada joogto oo haddii dawladda wanaaggaa samayso oo dadkana waa qalbi fiyoobana oo dadka dib u heshiisiin aa lagu haya dib u heshiisiin maalsa war dadka dagaal kama dhexeeyo hadda dagaal kama dhexeeyo dadaa dagaalka raba oo dagaal la-aan noolaa kari maalin dadka dagaal anigu hadda qof aan uqdad u qabo oo soomaaliya wallaahi wax kastoo dhacay amar alla ku dhacaan waa arkay wax aniga ii dalahay oo gooni ii raadsanayna ma jirin laakiin mugugufada laismugugufeynay oo xagga iska mugufeynay ayaa dad badan mugugufadaas wax ku noqdeen taasna nin walba wixii shaqaysto waa u qoran yahay xagga aakhir waa u yaalaan adduunkana asagana waa ogyahay intuu dhibaato u geysta waa ogyahay iska istaqfirulays alla waa qafuur raximi shadiid iqaab laakiin dhiig islaan iska cafinayn waana noo sheegay ilaahay waa noo sheegay rasuulkeena waa noo soo geersiiyey culimmadeennana waa noo caddaysay daacamana
hadda marka waxa ka hadlaa waxa waa dhalinyarada dariiq loo sameeyay oo ku shaqaysta loo sameeyay oo dadka kala hagin oo qolaba meesha mudanta aan lagu hagaajin wax toosay male dawladay maadaama ilaahay dawlad noo kidi ilaahay waxa ka baryayaa dawladan tii odana la geersiiso dawladda kale oo nin codkiisa inuu ilaahay nooga dhigay anagoo raali isu ah oo waxba isu qabin waxba isuma qabnee dadka maashin dadka dhahayo ayagaa jiran annaga waxa maqan waa nagu tuntay sidii rabaa nala yeeli waryaa yaa arkay nin oo naag lagu misaaliyaarka waryaa runta baa isu sheegna waryaa naagta runta isu sheegna maxaa bentu sheegaysa waryaa nin dhanoo boqolowe oo hortaa soo jiray yaa waryaa soomaali war islaahay waryaa waa la wada jooga waryaa awowga kama ficla waryaa adigoo marka waa idin xasuusinaya inuu meesha wax ka jireen luqdad ma qabaaniga laakiin waxaa idin sheegaya inay meesha wax ka jiraan waryaa iyaga aaba fiican adaa iga aaba fiican waryaa igama aaba fiicin wixii dambi alla naga cafiyo nina luqdad uma qabeen waxaan ka wadaa saasaa nalagu tuntay aniga iyo asaag iyo wax lamid iyo wixii yani ummad dhan oo qaali ah nasab ah aa lagu tuntay waryaa waxba ma qabna haddana qof soomaaliya wax u qabna ma jiraa xag calaa waa dhicila amar alle ku dhacan wixii mid waa la kala duugtay si kastaa laisu dhibo oo laisu dilo waxaa ka tahay war soomaaliya dawladdan aragna midaa marka waxuu ku leeyahay weli ma heshiinin ummadda soomaaliya ila heshiisaarta war adigaa jirna waryaa maxaa rabtaa adigaa dadka laayna adigaa dhahaya haddana aniga heshiisiinaa rabaa maxaa lagaa heshiisiinaa inta laasi waa ogtahay inta lagaa laayna waa ogtahay meesha uga bax inta ummado kalood kala martin waa ogtahay ka bax dawladda la shaqee alla una xariisiiyo cabdullaahi yuusuf wuxuu yidhi kuwa habeenkiina waa la shaqeyna kuwa maalintiina waa la shaqeyna madaxweyneyna waa madaxweyne soo maray anigu waa la soo shaqeeyey subax kasta baarlamaankaan taagnaa jiray anagoo hanuunin oo wadno oo koox dhan ah yaan subax kasta taagnaa jiray baarlamaanka baydhabo qarxii ugu horreey ama dhibaatadii ugu horreysa oo meeshaas ka dhacdayna dadkii waxaan ahayn ilaahay ka badbaadi yaa waxuu yidhi waxaan la hilmaamay nin walba ereyga reebo waa la garanayaa kuwa habeenkii shaqeyna waa la shaqeynaynaa kuwa maalintii shaqeyna waa la shaqeynaynaa markuu lahay madaxweynaha wuxuu ka waday wixii xumaan oo nuuda hoose habeenkii kuwa wada iyo waa lala shaqeyna kuwa maalintii waa lala shaqeyna cid walba oo shaqo xun iyo shaqo fiican miday wadaba waa laga warqabaya marka dawladani waa dawlad markii madaxweynaha aan soo qaadano madaxweynaha madaxa dawladda mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynehayda hadda horen u soo noqday anigu madaxweynaha waa la soo shaqeeyey wax badan waa ka ogahay wax xumaan ina kaba sheegaya hadda ma garata wax uga hadleeyba ma jirin ummadda soomaaliyeed ayuu shaqeynayay soo noqoye haddane oo calafkiisa kusoo noqoye kollay meeshaa ciyaar laguma yimaado ninkii yimaadane siduu ku yimidba howlaa looga baahan yahay ummaddan inuu midaa looga baahan yahay midaanta waatee war dib u heshiisiinta aad sheegaysa idinkaa col ah idinkaa isdishin idinkaa wax samaysin dadkiini oo misiga beega badsaday dadka beega badsaday idinkaa col idin dhex yaalla anaga ma aha haddii col jirana colka wuxuu dhex yaalla qolada beega badsatay beega qolada badsatay waaye markaad badsanayso waa ku jeedi anaa waraalli ku ahay haddana way ku badan tahay maxaa waa colaadda aad sheeganaysa adigaaba dhibaato geystay naga daa waxaas dawladaan rabnaa kolba anaga ku doqooni sidaan oo yani na dardarteene oo iyadoo noo toosan baska oo yani meel fiican marinayna naga rideen qoolaalina naga daa waa ka cimrigeena ku dhasheen ilaahay kuma dheelini
وهذا الحمد لله سنة كنا نلعب وعمل إلهي ورالي الكراي ورالي صومالينا والله يا وحدن بالله نعفيه وضد مقبي ما نقبي الدور صوماليا هاي عندك دلسن بجرتو أنا دلتا صوماليا سعيد نقول لي هذا استجني شو لي هذا وأبوان جني شو لي هذا لحم جني شو وكستوا وأكتي qofki iyo qaanano caloosheedii iyo hadalka ku hadlaay inay yani iswaafaqsan yihiin waa ogyihiin macnaha hadal aan ku hadlaayo waa fiyow hadalka xumaanadii hataa loo haysto mid fiyow waay waxa la qabsadaan ka wadaa oo wax alla wanaajiyo soomaalidana ha la wanaajiyo waxaan uga baxayaa ilaahay idinkiis inaynu dowladdan noo dhalatay inaan adkayno oo yani waxyaabaha oo iskadansiga oo dhacayo inaan dheg loo dhigin iskadansiga waxyaabo oo waxyiyar waa iska dhacdhacaya waxa dhacayo dad inaan loo qaado laga socdo hor loogu socdo yani duulaanka la joojin meesha halgan waay macnaha dowladnimada macnaha la halgamo la dadaalo oo ummadda yani waqaalaheed wanaageeda yani wada socoto dadweynaha laftooda dulmilayaal waay markii arkaan qof waxaan wado dadaa la jiraa waxa la jirin meesha wanaagsan ka raac asaga daa xushaka dadka cabsanaysidna ka leexo kan wadada wanaagsan raac si ay dowladnimadiina u noqoto qaali soo garan marka insha allahu waxaa uga baxayaa dowladda dib aan ugu soo noqday dowladay dadka haddaan yani aan loo sameynin dariiqyo ay ku shaqaystaan sida dhalinyaradoo kale haddaan loo sameynin dhalinyarada baahi banaan ma la joogi karto meel nin dhalinyaro ah xoogan meel lama fadhi karo xooggiisa oon waxba aqoonin dadka inuu xooga waaye wax ma yaqaan iimaanka yani nus noqonayo qofka hadduusan camal lahayn iimaankiisa ma saxna aad ma lahaanayo marka qaarkeed maxkamad ma qabanaysa marka qaarkeed marka la geeyo hadduu qaangaar yahay horta waxaa sharciga ilaahay meesha yaallo qaangaar hadduu yahay hini ma jirto laakiin qiilo marka qaarkeed yeelanayo ninka muxuu hayo waxba ma hayo iyo u shaqeeyo cidna uma shaqeeyo muxuu waa nin dhalinyaro ah wax walba u baahan yahay xaragu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay abeendhaxu u baahan yahay meelamarmar u baahan yahay mustaqbalna u baahan yahay oo inuu dego guri dego haddana ninka ragga haddii oo guursado oo dhalinyaro isagoo guursado oo camal yar intuu helo guursado oo waa degaa oo xumaanta dhan in badan waa ka tegi doonaa marka insha allahu marka waa soo gabagabaynayaa waxaa kusoo gabagabaynayaa dardaaran guriga ku haraa la yidhaha dardaaranka waxaa ninka guriga ku har un waa dardaarmaya cidda la dardaarmayo oo ujeedo wallahi waa ogoo in badan ima dhegaysanayaan warkaan ilaahay waxaan ka baryaa inuu gaaro inta hoose hadduu gaaro inta kale ayagaa u sheegi karo kuwa kale ayagaa u sheegi karo ummadda ayadaa isgeersin karta wixii wanaag ah waxaan idinku codsanayaa ustaadka maartay inaad u saartaan wixii loo saari jiray oo lisku dhaqaalay jiray baalkan weli iima dhalin haddoo ii dhal qanjaydaanad ka fahmi leedeen iima dhalin bahasha i saaro oo waxay idin tahay nin hadaad wax ku kaalmayso sadaqan ku tahay cod ku kaalmayso garab ku kaalmayso oo wanaag eh xumaan ahayn waa sadaqo wareedhe waqtigaa keenay walaalkiinaa lahay istaraabkii ii saara wixii la saari jiro dhan saar anigu makala aqaan waxan dudiya saarsaara wixii wanaag la jeclaa jirta weligii la jeclaada waana idin jeclaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeeday waqaalo insha allah